Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ay codeysay doorashadii madaxa guud ee hay'adda caafimaadka qaramada midoobay qaabilsan WHO loo soo gaabiyo kaas oo loo doortay Dr. Tedros Adhanom isbuucii aynu ka soo gudubnay si Soomaaliya codkaasi ugu yeelato waxa ay hortaagnaa dhaqaalo ay iska bixin weyday dowladda Soomaaliyeed muddadaasi 30 sano ahayd waxaana sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur loo doortay inay noqoto agaasimo ku-xigeenka shirguddoonka hay'addaasi ee WHO. haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada Geneva ee waddanka Switzerland oo doorashadu ay ka dhacday kal hore khadka telefoonka ugu warantay Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta. Assalaamu calaykum Zahra Ramadaan Kariim. Shirkaan ka soo qayb galna horta waxa waaye shir ku saabsan caafimaadka ay hay'adda World Health Organization hay'adda caafimaadka adduunka ay qabato sanad walba marka shir guddoon waxaa loo doortaa president iyo 5 ku-xigeen oo vice president ah. Soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid ka mid ah shir guddoomiye ku-xigeenka ama vice-ka gobolka aan ka tirsannahay WHO oo Emerald la yiraahdo oo ku fadhigiisa yahay Qaahira. Shirkana markii loo soo jeediyay waa aqlabiyad waa la ogolaaday. Marka wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa sanadkan shir guddoomiyeyaasha vice-ka ku-xigeenada ka mid ahaa. Dr. Fawziya wasiirka caafimaadka Soomaaliya shir guddoon ayay markii ugu horeysay muddo dhowr iyo 30 sano ama 30 sano ay noqotay. Marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qayb ka noqoto shir guddoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay Soomaaliya? shir guddoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qayb geliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qayb galno. Doorashada maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhawaad 30 sano dagaaladii iyo ka hor. sababta dawladda Soomaaliya ma aysan bixinin fiigi loogu talagalay inay sanad walba bixiso. Lacagihii ku ururay daraadeed codki ayaa aan ku weynay. mana ahayn annaga laakiin waxaa jira dawlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgeed. Soomaaliya marka Soomaaliya sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso ayna awood u yeelato inay doorashada ka qayb gasho. Marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashadii sanadkan dhacday lagu doortay Dr. Tedros. Waa gartay marka ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya qarashaadkii lacagihii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo 30 sano kadib? qarashaadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadnaha ka gaarto wafdigeena iba safiirka noo jooga Bitsara Marwo Faadumo Cabdullaahi Maxamuud insaan